haddii aad weydiiso waa maxay qaladka u weyn ee aynu nolosheenna galnaa, wuxuu ku jawaabayaa qaladka u weyni waa adiga oo ku fekeray inaad waqti haysato. waqtigu waa free, aan qiimo go'an lahayn. ma yeelan kartid laakiin waad isticmaali kartaa. ma ilaalin kartid laakiin waad bixin kartaa. hal marna haddii uu kaa lumo lagama yaabo inuu weligii kuu soo laabto. celcelis ahaan qofka bini'aadanka cimrigiisu wuxuu gaadhaa 78 sano. 28 sano oo ka mid ah waxaynu ku luminaa hurdo, taasoo ka dhigan in 30% cimrigeenna aynu hurdno. 10 sano waxaynu ku luminaa shaqo, iyagoo weliba 50% inaga mid ah ay rabaan inay shaqooyinka ka tagaan mushahar yari darteed. 4 sano waxaynu ku luminaa cunto iyo cabitaan. 7 sano waxaynu ku luminaa carruurnimo. 4.3 waxaynu ku luminaa goobo waxbarasho. 9 sano waxaynu ku luminaa TV iyo social media. 2.5 sano waxaynu ku luminaa dukaamaysi. 2.2 sanana waxaynu ku luminaa safar. 4 sano oo kalena waxaynu ku luminaa waxyaabo kale sida cibaadaysi iyo asxaabta aynu waqti la qaadano. kaliya waxaynu hadhay waa 7 sano. sidee ayaynu waqtigaa hadhay u maareynaa? Steve Jobs wuxuu leeyahay waqtigaagu waa mid xadidan ee ha ku luminin qof kale noloshiisa. haddaba waxaa jira laba war farxad leh iyo war naxdin leh. warka naxdinta leh wuxuu yahay waqtigii uu tegay mana soo laabanayo. warka farxadda lehna wuxuu yahay waxa aad noqotay injineer, pilot, doctor, ganacsade iyo wixii la mid ah. bal qiyaas haddii subaxii marka aad toosto ay 86,400 oo dollar ay akoonkaaga ku soo dhacayso. sidaas la midana marka la gaaro dhammaadka habeenkii ay akoonkaaga ka baxayso. isticmaal ama ha isticmaalin, haddana subaxa xiga intii in leeyahay akoonkaaga ku soo dhacayso adigoo og in marka la gaaro dhammaadka habeenkii ay akoonkaaga ka baxayso. maxaad ku samayn lahayd intaan lacagtaasi bixin? sidee ayaad uga faa'iidaysan lahayd intaan berri subax la gaadhin? maalin kaste 86,400 oo sikin ayaa ka baxa akoonka nolosheenna. sidoo kale maalinka xiga waxa aynu helnaa 86,400 oo sikin oo cusub. maad lumiseen haddii xaddiga intaa leega ay ahaan lahayd lacag. haddaba waa maxay sababta aad u luminaysaa tirada intaa leegi marka ay noqotay waqti? sikimadaasi way ka awood badan yihiin lacagta. maxaa yeelay lacag badan waad samayn kartaa laakiin waqtiga ma kordhin kartid. haddii aad doonayso inaad ogaato qiimaha sanadka, weydii arday dhacay kana hadhay gradekiisii. haddii aad doonayso inaad ogaato qiimaha bisha, weydii hooyo ku jirta bishii 9aad ee uurkeeda. haddii aad doonayso inaad ogaato qiimaha toddobaadka, weydii qof soo saara barnaamij toddobaadla ah. haddii aad doonayso inaad ogaato qiimaha saacadda, weydii lamaane xiriir ka dhexeeya oo kala fogaaday. haddii aad doonayso inaad ogaato qiimaha daqiiqadda, weydii qof isla markaa tareen, bas ama diyaarad ka dhaqaaqday. haddii aad doonayso inaad ogaato qiimaha sikinka, weydii qof isla markaa shil ka badbaaday. haddii aad doonayso inaad ogaato qiimaha milisikinka, weydii qof kaalinta 2 ama 3 ka galay tartan Olympic sidaana lagaga guulaystay. waxaynu u malaynaa inay dadku waqtiga inaga lumiyaan, balse xaqiiqdu waxay tahay innaga ayaa u ogolaana inay sidaa yeelaan. qofna ha u ogolaan inuu waqtigaaga lumiyo si la mid ah sida aanad u rabin inuu lacagtaada lunsado. nolosha iyo waqtigu waa labada macallin ee ugu fiican. noloshu waxayna bartaa sida ugu wanaagsan ee aynu isticmaali karno waqtiga. waqtiguna wuxuu ina baraa qiimaha ay leedahay noloshu. xikmadihii William Shakespeare waxaa ka mid ahaa: waqtigu wuxuu gaabis leeyahay kuwa wax doonaya, waxa uu degdeg leeyahay kuwa cabsanaya, waxa uu dheer yahay kuwa murugoonaya, wuxuuna u gaaban yahay kuwa dabaaldegaya. balse kuwa wax jecel waxa uu yahay waxaan abid dhammaanayn.